muuqaalkan aad arkaysaan waa xoogsatada ku nool magaalada Jowhar waxayna sameeyaan alaabaha kala duwan sida sariiraha, armaajooyinka, miisaska, kuraasyada, albaabada iyo wixii la halmaada. maraynu la kulanay saakay ayaan waxaan ka wareysanay qaar ka tirsan dadkani lagu magacaabo faryaamada ayaa waxay inooga warbixiyeen sida ay uga shaqeystaan ama qaabka ay u sameeyaanba. waa kuwan qaar ka mid ah oo arinkaasi ka hadlaya. waxaan sameynaa jiifafka oo kala gedisan kuwan MDF-ta kuwan alwaaxda sidaan arjeedada gacanta lagu sameeyo sidaad arkaysid kan waxaa laga koobiyay extra marka jiifafka xaaladooda waa sidaas kuwa extra iyo kuwa kale oo iska caadi ah jira marka qofku wuxuu kaysto ayaa loo sameeyaa nashqada doo kaysto nashqadana rawaado haduu dhoo isla nashqadii ayaa loo sameeyaa kuwa kale dalab caadi iska inuu waa iska jiraan waa sidaas imisa gada marka kuwa extra iyo kuwa kale maxay kala dugan yihiin waxay kala dugan yihiin farsamada ama islaha kuwan extra oo taqaanid ayaa laga koobiyay kuwaas way lacag badan kuwa kale waa lacag iska caadi ah kuwa kale waxa la gadaa 250 kuwan waxa la gadaa 300 waa bartilaakin hadda si fiican barashada oo siiyay haye ma waalidka u shaqeysaa masada iska u shaqeysta waalidkeena u shaqeeya iskeena u shaqeysta haye hadeer maxaa macnaha sameyn kartaa oo adiga xirfad ahaan waa taqaanaa isleedahay ay fadhaan ani wixii leeyahay hadda qabagar iyo waxa warbixinaysa wiil yar oo daayira tahay shaqada aad ka shaqeyso aniga waa faryaam ayo qabri jadka baa joogay ayo macallinkeenna soo wala intii wax bari ayo hadda ma aanan joogay ayo wax kale ku shaqeey mala waalidka ma ku ogolin shaqada aad ka shaqeyso way ogolin shaqada hadda oo ku qanuun waa faryaam ayo hadda hooshii hore iyo hadda hore loo kale way hore maxaa ka shaqeyso bay hore Allah bi waxaan ka qaniin Allah taad alwaax waa ka dhaafo hadda ala jikada MDF ala keen MDF si alwaax MDF bes oo ka alwaax waa ka dhaafo hadda mid awr waa ka dhaafo ala alwaax ala ka dhaafo ana dad farsamo yaqaan ah oo gobolka Shabeellaha ku nool gaar ahaan degmada Jowhar waxaan iskaga xamaalanaa suuqan dawlad garaash faryaama oo furo ilaa alaabahan sameeynay oo wareega jiifyaalka arooska waa sameeynay albaabada guriga iyo dirishada waa sameeynay sariiraha caruurta waa sameeynay oo dhinac xirka leh ma sha Allah tabarakallah wax walba oo ku saabsan xagga oo guriga alaabaha boobelada albaabada guriga dhamaan waa sameeynay iyadoo miraa la imaado حتى كيف كانت توجه كيريس كانوا وسينات ما كانوا مش عوات وطن يدو كل وطن نوع كل وطن مت كل وطن ما شاء الله الله وانا قرع سناي فاذا ما قبطان وقتها نصيب معناه قفل بعلف كيسون باسكتان والله ما شاء الله سداد شيء وسكوانيول بعلف كيسو عنا انا ما اليوم ينكراتنا ماني انا ذاك دسن موجودنا سواحد هلك ساعه ايمانه ما علم او غراونا اليوم بس علوليدان كراتنا ما عنا wax kala ka maraadino wax faa'iido ka marabno waa adiga kasta siro lagu guriyo alaabtaas sameeyay alaabta kala sameeyay ilmaha wallahu billaah ka badan ka maraadino wax faa'iido fiican ku qabo xirfadan ilaa ma qasana ka shaqeynaysa farsamadan waxaan soo galay shaqadan horta koori xamaran soo cabarta aniga xamarna waxaan tay 2000 aan tay xamar aan shaqo bilaa bakaaraan ka shaqeey jiray hadda jooraan u dhistay jooraan suuradii farsamo soo bartay hadda joor waxaan ku shaqeynaa 2003 joor imaaday لو كل سدحدي ما خالد جواي طمني سدح سنة عن جور جواي عن شغلات شغلته. ولكن وحياة على الكراوي هاي أنا كميت على الكراوي هاي الكراوي هاي خاصة عيال خير ليش هاي مستعصم يطلع سعودي على الكين عشان وحبرك أنت لو كان هذا هو عيال الكراوي عيال طول كله عيال كبرك أنت صوبل وهذا معلمين أو وحبرتنا جوا أنا كميت dadka Shabeellaha dhexe ku dhaqan waxay u badan yihiin dad xoogsata sida beeraley xoolo dhaqato iyo xamaali dadkani waa kuwa ku xamaashta sameynta alaabta ama aqalada ama jiifka sida aad u taqaanaanba